dacabtiyo dhulkaalkiyo boogahan damqanaya Soomaali dilay baan dawo kaaga dhigaya dalkaygana dhamaantii adiga difaaco dayr oodan baa tahay maalintay u daran tahay darbi aan la marin cirdi kaamay baa tahay dadka kaba madnaadee dooqiyo jacaylkana adag kugu dambiibay doctor caana baa tahay afarta inta dagay mawduuba jarihi marra baa durduradii sangaha dul saarnaa ma dilaansho socodkii codka danan makashada shibruhu ma duuleen bakada shigida soo dhawaada waa yaab iyo amakaaga iyo dhabanahays iyo barnaamij buuqiisa iyo khalkhalkiisa iyo digniintiisa wada soo dhawaada siina shargaray assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka iftiiminta xaqooyinka arrimaha bulshada walaalka aftax boodhooda leh goob kasta iyo goor kasta joogtaan beelaha waxaan idinka baryaa cimri dheer iyo caafimaad iyo cibaado suban qof kasta oo barnaamijkaas soo gaaro waxa ku waajiban inuu sii shargarayo harta caashaqa si gaar ah baan idin salaamaya shacabka kale ee Soomaaliyeed waxa leeyahay channelka subscribe-ka ku booba oo gambaleelka furta barnaamijkana like-ta darandoori bidixdii midka waxaan idin wadaa maanta barnaamij aan u fashilinay kaashkii magaalada soo galay ee social media la soo galiyay iyo dhalinyaradii Soomaaliyeed oo kacdoon ka gees ka bilowday social media maanta waxaan wada hambaliyo iyo digniin itus oo itaabsi ah qof kasta waxa ku waajiba barnaamijkan u share garay waxaan ogeyn in social media uu ka socdo in la kicinayay dabayl qabyaaladaysan oo meel fog gacanta saddexaad dadka Soomaaliyeed laga dilay gacanta saddexaad dadka Soomaaliyeed laga dilay oo lagu bilaabay social media waxay soo galgalataba wixii ilmaad si galgalmaad soo galgal guna maada jirin gacalka ku jecel baan haad kaala goyn intaynu niqinay baash way soo dhaaftay laakiin hambaliyadan idin qadimaya hambaliyada iyo wanaagan idin qadimaya dhalinyaradii Soomaaliyeed ee social media ku jirtay mashriq iyo maghrib galbeed bari iyo koonfur iyo waqooyi inta u dhaxaysay shacabkii Soomaaliyeed iyo dhalinyaradii Soomaaliyeed oo isku duubni muujisay madax ku tidiyo gabal baasu dumay bukaan socodkiyo araxda ka jabay raggii social media la soo galiyay ee lacagta la soo siiyay ee dhaqaalaha lagu soo fangareynayay ee waday madaxa qabyaalada cando u horeeyo cando Mr. Cando oo sheekadii dhinaca kale u rogay oo yiri doorashooyinkii baa la marayaa xaaladdu iska badaysa dabayshii socotay ayuu dabcan inuu ka hortago isaga kaliya ma ahay waa koox badan laakiin alxamdulillah waxa mahad ilaahay ah maanta in dhalinyaradii Soomaaliyeed ee social media ku jirtay wiil iyo gabadh mid yar iyo mid weynba in ay maanta hal wajilayeen inay hal go'aan leeyihiin inay hal meel u socdaan waxaan rabaa inaan ka dabageeyo lacagta dabadeeda taala ee tirada badan waa lacagihii la bixinayay sida ay u xirxiran tahay iyadoo u xirxiran karaatuun ku jirta karaatuun ayaa saadkii xawaaladaha la isu marinaya laakiin way shaqayn weydii dadka Soomaaliyeed hal illa waaleeyin hal degna waaleeyin isha iyo dhagta wixii ay ku arkaan ama ku maqlaan maalintaas ugu dambaysa saaxad u ka baxaa maanta guul baynu joognaa waxa weeye muhiim ah dhalinyaradii Soomaaliyeed oo ugu dambeeyay ninkii la oran jiray Maxamed Aamin ee naanaysta lahaa Sheekh Babu ninkii la oran jiray ee yiri anigu waxaan u dhimanayaa xaq baan ku dhimanayaa hadii la dilo buu yiri maanta hadii la dilo waxaan ku dhimanayaa waa xaq ee xaqii ku dhintay lagu dilay ummadda Soomaaliyeed waxay u baahnayd geesinimada iyo kartida iyo adkaysiga iyo guushu waxay ku jirtaa inta aad hadba lugahaaga dhulka ku haysid hadba inta go'aankaagu leegyahay lacagahan aanu fashilinay oo aanu sheegnay inay social media soo gashay tiyo cad oo lala wareegayo oo dadka lagu bariyo dadka social media ku jira waxa lagu xaman jiray waayadii hore hebel lacag buu qaataa laakiin maanta waxaanu idin haynaa aan wax ma duubo codna ma soo daayo wala siyaasi la hadlay wala qof dhalinyaro la hadlay laakiin hartayda caashaqii shacabka Soomaaliyeed sida aan ugu kalsoonahay ayay iyaguna iigu kalsoon yihiin marka sidaa darteed waxaan maanta cadaynayaa in dhalinyaradii Soomaaliyeed diiday wax la yiraahdo lacag inay isku filnaansho gaadheen in nin waliba irsaaqada uu helo oo Ilaahay u qoondeeyay oo ku qancay in maanta lacagta dabadayda taalaacid qaadata la laayahay in dadkii Soomaaliyeed iyo dhalinyartii Soomaaliyeed ogaadeen awoodda ay leeyihiin awoodaydiba Ilaahay shacabka Soomaaliyeed markii hore shaydaan baa ka ilduufay
shaydaan ayaa ka leexiyey oo wuxuu yidhi awood ma lihidin waxna ma qabsan kartaan laakiin maanta waxay ogaadeen inay yihiin awoodda qarsoon awoodda wax allaali waxay doonto samayn karta awoodda ilaahay mooyaane cid ka hor iman karta aanay jirin inay yihiin hir iyo darbad iyo mawjadii miyaatayinka badda ka dhacay inay ka wenyiin afka ummadda Soomaaliyeed bay ku hadlaan dhalinyarada social media ku jirta wiliga gabadhba dhammaan maanta social media eega gobonimada ka socota eega hiilka ka socda eega sida dhalinyarta Soomaaliyeed isu garab taagan yihiin eega 10 sanadood baan raadinaynay arrinta oo social media ku jirnay 10 year oo aan social media dhex fadhiyay ayaan raadinayay dhalinyarada Soomaaliyeed oo go'aan yeelata diida waxa xun tiraahdo ma qaadanayo mana yeelayo qabyaaladii way socon weyday كاش بالله صدري دولار واحد بدي دياله عيد قادتها بيلا عداي عيد قادتها عيرني كيجري لا عينا وعنس بالوبة واجه هوري قد يدنو هالكيدي حتى عاوتي ولا لاي وحن عاوة ربائنا كنت تحت حاشو أو صفي عنو قبل بلار صدو ما صار هذا كورتريو أردت هذا هورانيسي ما سوي وتكم ديرو duufaanku qaadiyo dibjir iyo colkuma helo inkastoo dakare iyo doog iyo xanuun tahay dadka qaar colku leeyahay daacadnimo u hiltahay kuma daayo waligay dadnaha igu ka naco rabbigay ku darajeed weeysageed way abidkayna kuma tagin dawarsina kuma badin wali kuma ana daayicin dardarku kuma soo kicin kugumana dagaal galin inta dunida joogtiyo dunyada dhamaateed dooratay haday tahay adiga ila diriso daay baskeen badan dacarti iyo xanuunka iyo boogahan damqanaya Soomaali dilay baan dawa kaaga dhigaya dalkaygana dhamaati adiga difaaco dar oo dambaad maalintii u daran tahay darbi aan la mariyay cid kaamay baad dadka kama marnaadee dooqiyo jacaylkana adaa kugu dambi way doctor caana baad afarta intaan dagay mawduuba jarihi marba durduradii sangahan du saarnaa codka daran ma kaga shiday shibruhu ma duuleen ma ka daashigeeda bal hada eegay suugaanta iyo wadaniyada iyo dadnimada damiirka fiican iyo diinta iyo qofka dhaqan kale ee wadaniga ah ee dhiig iyo lafta ay ka raacdo lama iibsan karo waanu diidnay maanta kuwii shalay qabiilka lagu kicinayay ayaa maanta waxay istaageen no ciidan sheegaan ma garan lahay yaan sheegaa yaan sidaaya afkayga haddaan furo oo aan hebel iyo hebel dhaho waaga inagu bariyay cid inta social media ku jirta waxa 22 oo jeer ka sii muhiimsana inta daawanaysa inta commentiga qoraysa inta ficilka bixinaysa inta kula soo hadlaysa inta message-da ku soo diraysa inta ku ducaynaysa maanta waxa la ogaaday hadii dhalinyartii Soomaaliyeed ay maanta isku duubni yeesheen nin kasta oo ay ah oo daayeer ah oo daalin ah social media ha soo galana wax kale lagu sameyn maayo dislike-ta ku booba wada hadal buu yiraahdo ka sakaaray maalintan xawo aroosiyo ma xisaabtaba keenay iyo xoolaad ugu leedahay maxaaba buuq iyo dagaal iyo qaylo keenay nin allaale iyo ninkii ka hadlaya qabyaalad isku dir ka hadlaya dalkeena iyo dadkeena duminaya daba dhilif cadow u ah ummad Soomaaliyeed dhalinyarta Soomaaliyeed heesay waa la deyn way مجاتلستي كوميديانك ولا دنواي ابوانك ولا دنواي gabadhii social media soo fariisto dadka xu faa'iideyso raashin kariso wala deenwaay waxa la damcayno inta laale oo wax baranay oo 30 sano oo burburo way aragnimo haysana oo ku soo kornay ba iyo hoog iyo balanbar iyo dhiig iyo geeri iyo naxdin oo ummadeeni 30 sanadood ay qaxaysay 30 year baynu qaxayn iyo 10 ka horeey 40 sanadood inagu qaxaynay oo inta luuqadada caalamka laga hadlo in maanta ku hadalo oo adduunka meel kasto aad joogto professor Soomaali oo Chin Huawei wax ku hadlay Chinese iyo Korea meel aan Soomaali aan joogin aan jirin nimanka Yahuud liidad ee maanta tashaday ee adduunka gacanta ku dhigay mad sababta ay adduunka gacanta ugu dhigeen waxay kuma soo degin oo Ilaahay iyaga uma qorin meel garanaysan way qaxeen oo been oo hoogeen oo dhabarka ka jabeen laakiin waaye aragnimay ka qaateen kii China ka yimi uqaxay yakii Yurub uqaxay yakii Mareykan uqaxay yakii qarasay meel daran ka dhacay intay isu yimaadeen bi cilmi iyo aqoon iyo maal iyo hanti iyo maskax isu yimaad dadka Soomaaliyeed maanta haday isu tagaan oo ay maskaxda iyo awood iyo hantida nin waliba uu soo faa'iido la soo yimaado wallahi bayna qurbo ugu baahnay oo wallahi bayna meel kale ugu baahnay in dalkeenu inuu jannatu dunya ka dhigi karna jannadii adduunka ayaynu ka dhigi karnaa Soomaaliya laakiin
ishii qura ahayd ee maanta la rabay inay wax fahanto een weligayba ku taamayay in habeen iyo maalin ku fikiraya dhalinyarahay cid wax bedeli kartana waa inaga maanta haddii social media isbedelay maanta haddii daalinka iyo madax kutida iyo bukaan socodka iyo in xayawaanka ki hadlaba maanta haddii saa loogu yaacayo barina waxaa imanaysa madax kutida lagu yaaco barina in madax kutida lagu yaaco waxa insha Allah gordhow bishan gudaheeda dhici doonta in la waayo qof qabiyaalad ka sheekayo social media jooga wax kale lagu sameeynaya ma jirto kaliya taa waxa uu wado ee xaaraanta ah ee loo bumbuuni jiray qabiilkii waxa xantayn jiray ayaa dhamaaday endi waa dhamaadeen wax waliba bilow bay leeyihiin dhamaad bayna leedahay nasrigaana ilaahay baa mahada iska leh marka labaadna shacabka Soomaaliyeed ay wax fahmay ayaa iska leh dulmi dambe iyo daalin dambe iyo magaan xun oo dambe dadka Soomaaliyeed weerarin doonaan ma jiro maanta social media ku lacagta cid wallahi cid qaadatay laada soo ma aragtaan waa noocaas iyadoo sida u xirxan balala wareegay sidaas u xirxan hebelow inaadero halka ka kici qabiil hebel caay reer hebel islaamihii baa diiday xitaa social media ku jiray oo yiri ma ogolin anu hooyooyin baan naabay uma baahnin dhalinyartii baa diiday nin wali wuxuu yiri wali yoomkayga waa hela yaa maanta qaadanay wataas qadiyada waxaan idin sheegayaa Soomaaliya qadiyada iyo awooddo iskuul biirtiyo maskaxdo isu soo jeesata inay gobonimo tahay qadiyada nimaanta xumar salacata inay diido cid ka hadlaysa social media ma haysan kii allaani kii qabyaalad ka shaqeeyay dislike lagu boobaya nig konto ku ku gaadhaa cid ba ka dhacay dib u soo hadli maayo ma maqli jirtay hebel far iyo suul baa lagu qaaday balaaye ku qaadatay ma maqashay Soomaali ku aragtay way guul baan joognaa si sheer garay barnaamijka gaarsi umada Soomaaliyeed guul baan maanta joognaa waxa ceel ku dhacay qabyaaladiisti waxa ceel ku dhacay bukaan socod waxa nastay gabdhihii Soomaaliyeed tima dheertay awradeeda la sidi jiray waa nasatay والله لو أركن ندبوا قبر صومالية سوق قوية بشاريست يدوقنا بشاريست قبر دموا قوية سوشيال ميديا لو أركي مايو بشاريست قبيلة دبلا أركي مايو بشاريست وحي أتهم يسين العكت هيدو تمام أنت يدوريس هاد يا أنت يدور دونتا هدان هذاك وحكلا بحمانتا ودلك يدك يهل الدميو أنت قادر يسوي له مجد صوت توكل لنا بنا هذا بالله درين بالله دمير بالله نهاي دين بالله نهاي واكل لنا ويسكت ماتي هل كاسيت الله بدح كنت دي بس ده كان هبل بقى أفدير هبل اللوجي تلفونك بقول ما يهم ما حد أيوة لو هتان وين لقى بقى ضدك وين لقى بقى أول كيو هوري ما عنده تحت أولين الشباب كصوب حي ولا قبطي ولو قبطي قال كعيو نكاس وحيري شعبك كورن بالي شعبك مرقع دشان ما شعبك باستو واي شعبك ولا بتشقي بوجي شعبك هرتودا حلو دلي باري واي ولا شعب نكاسي wuxuu muujiyay shacabku inaanay waxba qaban karin balad eegay laakiin haday wax qaban karaan buu yiri oo shacabka la bajaqin anagu ma noolaaneen buu yiri waa runtii maanta marka shacabkii Soomaaliyeed social media ku ninba wuxuu doonayaa inuu lacag ka shaqeeyo bal aqliyadu inuu xayawaan yahay baan ku sheegaya wuxuu rabaa inuu daawatid oo lacag ka sameeyo hooyadaana wuxuu rabaa inuu qarxiyo muqdisho rabaa inuu ololiyo wuxuu rabaa inaan la nasan wuxuu kula doonayaa goblan ubadkaagii wuxuu rabaa gaangis inuu ka dhigo kuwa qurbaha joogay daawanaya ubadkiina la yaabantiina gacan gabadka kula tiin dam Soomaaliyeed geysan lahaydeen ay ku raaxaysan lahaayeen arurtan hadda xagee la geeyaa Masar Turkiga ilaahay baa idin ku dhaarshay Turkiga soo guriyay kama dhisna soo Masar guriga kama dhisan Nairobi guriga ka dhistaan meedikaale baraad ka baxaysan dad aan dalkaaga hay wadan ku joog ninkaani marka ma ogolanaya Muqdisho tagtid inaad Kismaayo tagtid inaad magaalooyinka Soomaaliya meel kasta noqoto aad tagtid wuxuu rabaa inaad halka baayo hoogay gaangiska ku jirtid Masar guriga ka dhisatid waad fahanteen marka ila socda waad fahanteen maanta xaqi heshin ilaahay maanta xaqi idin solonsiyo Soomaaliya nila allaaliyo ninkii aad aragtaan il iyo baalka qaadan ku yaac waxa ku yaacda lama arko wanaagana kor u qaada dhalinyarta taageera
daalimiintana dislike siiya xaqa iyo dadka ka hadlaya wanaagana like-ta iyo subscribe-ta qofku doonaha noqdo qof allaaliyo qof xaq ka hadlaya dad aragtaan oo Soomaali oo dhalinyara subscribe ku saar oo gambareelka furta oo like-ta ku booba oo si share garay waxa inoo balana wanaag lacagtina wata wallahi ufali iyo billahi ya tallahi ama aamin hama aamin nin wala wuxuu ilaa u yarbaan meel ka helaa iga badantay intaas hooyada ku goblamiyo oo hooyada ku qarxiyo wallahi diiday buu yiri wala la wareegaya عند صعدة سمين أرك دورة شدي مع سودة هالكلام كذا على ريح قصح على الدنيا والعك وكيش لعوش تاع عذر رفتنا مجد ديسلايك تكون عضينا لابد نقول بيتها لك هذا مكافي صار وصول لك صار نبي لبعضهم كونوا صدم دقيقة ماشينا نبي لبعضهم كونوا ديسلايك يكون عضي فيديو يدا مركا كان ما توين كنتم كونوا الله يكون عضا kuwa soo socda qof ka soo aragtaan weyn leegtay iyo subscribe mu soo daray war waa dhamaatan yow baahan dalkaas taala waa isku dhamaato walaaka aftax boodadi iyo barnaamijkan waa continue waa soconaya maalin xitaa daqiiqad baaqan maayo si share garay barnaamij harteeda caashiq aad baa idin salaamaya sida ay jeceshiin baa idin jeclahay khayr iyo baraka idin rajaynayo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh